ما دبد وهل طبيق ده ما أنت وايه arrimaha dibadda intii xukuumadda jirtay dadaal badan waxaan u geysanay in arinteena qadiyadda Soomaaliyeed xoogeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo 30 sano meel kasta oo aynu tagno iyo report kasta iyo madaxweynayaashii hor dadaalkii sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyay ilaa golihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Tuur Sheekh Ibrahim Sheekh Ali Marmaartu lahaa computer Ingiriis Soomaaliland ilaa maanta hal erey bayn hortaagan oo arintaas Afrika u taala Afrika waxa ka tiraahdo geeska Afrika u taala idinkeedii ka dhaxaysaa bilowta wax soo dhah waranagu waanu saysanaa in kala saar waayahay Afrika gasho oo ugu horeyso mar haddii halka ku soo urtay 30 sanadood waxay noqotay inaanu Afrika xoog saaro ilaahay mahadi dadaal badan baynu ka galnay waxaan idinku bushaareeyaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan ugu shahay in qadiyadda Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaaliland arintooda la galo hadaba waxa kala haynoo dambeeyo gulaha kale iyo halka la gaaray Sooma bilaawday halka ay wadonaysa way waxaan ka bixinayaa arinta warkeeda maanta aad loo hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bir 9keedii midna waxaan dul maray 1960kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino daayar sano u sheegno 9kii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halka wafdi uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhamaantood iska xil saaray arinta Somaliland oo kamid ah Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha dadku dhamaantay aanu kamid ahayn qadiyadda in la wadaafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahdaa inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan nugul madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhamaan la kiiskiina maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegi raadihin maxaa soo bixi raadihin socdaalkuna waxa 9kii waxay maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan wala kala baxay inaan maalinta mar soo noqdaaba 9kii markii aan tagay ee ololaha iyaga aanu galnay ilaa waxa doonayaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii inaanu soo baxno 10kii ahayd 10kii maalintii dambe fiidkii anu 12 soo baxay salaasidan soo baxay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo prime ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan imaado runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukuumadda dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize caalamku siiyay waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhame ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay nin ka sameynaya isbedel geeska Afrika oo dhan isbedelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qotoma aad baan ayaan ugu farxay markuu wacay inuu chance ka siiyo hal baan ku tagay aad u ordaya يعني حفيزك سكوتك كوي توانك سلام يكفر كبعدي لبي روس حصار سلانة وحوي شيء إن مدحونه صوماليا فرماتنا وسوق رايو أو رح تسوجره وهذا سوق رايو هلكن مركب اسمه وايد صد حديد هلكا وحنو قال الشر أنا كل أنا ورشيه سهرو سيوقين كان ديار جروبين أنا ما كان كوهين إنه صاف فضوش كاسور عايو وأستكمل تيم رئيس وزراء إثيوبيا هدي وصانو احترامي أو إسقو أو أفريقيا من كيو بتشرتو أو شركة كتيرة أرنتاس قضية الصوماليلاند هي صوماليا إنه صاودنا يو واقع محضقية هل كان لبق وحن مدير بانشوغني وحي بلغوا هذا وحها برايم مستر أبيه وحيري
waxaan doonayaa oon diyaar u ahan soo diyaar garowno soo xarka xidhay inaan dhex galo dhibaatada dhex taalla Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taalla waa arrin geeska Afrika u taalla marka arrintaa waa galaya Somaliland haddii aanu nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halkaa wax ka badan maxamed cabdullaahina waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajanda iyo faahfaahin midna laba gelin waqtigeedaba laba hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday intaa iyo salaan iyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobaynaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dawlada dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo kuna diyaar baan u nahay wada hadal kartaydu way noo duuban tahay geed walbana diyaar baan u nahay inaan kartayda ku gallo annaga u baahan waxaan dhex gala labada dawlad waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo beer haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yeelan karo aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaad soo gasho cid wal artay soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno warwar ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arrintaas intaasay ku dhamaatay saas lagu soo kala ma baxay bishan 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 88 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii Xasan Kaydii lagu dilay ninkii sarkaalka ahaa ina cabe raali gelintaasi waa ninkii u horeeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ka xunaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteena la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasid erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadda raali gelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raali gelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaanu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raali gelinta maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda Somaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii Ingiriiska 1960 bishii July kowdeedii Somaliland iyada oo dawladda oo lixsha dawlad ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la mudowday
dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcada qurumaha ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kawdii Juulaay xorriyadeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ciidamo ictiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurtii shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegay waxaanay ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiiradiisa isugu yeedhay rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacaynaa taasina waa dhaabad meeltaada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diinaya waxa u diideen ma jira ilaa maanta mana dhamaystira axdi lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen oo heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalami ah noqon kara ma jirin 30 sanadood midaysnay markhaatigeedaan idin sheegaya inqilaabkii 10kii December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ciidamadaha ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axdi jirin oo ka dhaxay labada dal markii la xiray ragii inqilaabka wada Xasan Kayd lahaa Allah u naxariistay maxkamad baa la geeyay xamar ku taala 2 sanadood bay maxkamadda socotay markii maxkamaddii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa judge ka ahaa nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka heli kartaan Google-ka cid walba way ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro axdi midaysan oo laban dawladood galeen marka waxay daacad u yihiin oo haddii ay ciidan xisaabtamaysa dawladdii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha nimka jooga cad oo qaadi kara sidaasaan ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadan yawaarays iyo walaweyn oo atu magaalo yaryar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhadhow dhowr boqol oo kun dalka ma joogo waa marka ay soo baxday maxaa intaa ku xiga dhacay markii dawladdii la dhisayay dawladdii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir 3 baa Soomaaliland laga siiyay xaruntiina xawr bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo 3 taliya ciidan intaasna kuwa furba qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo Boorame Hargeysa Berbera Burco Laascaanood iyo Ceergaabo 6 degmo districts bay ahayd koonfurtu waxay ahayd 6 degmo Majeerteeniya Hiiraan Mudug Jubbada Sare Jubbada Hoose maxaa dhacay 61kii maxaa la sameeyay waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland 6 degmo ee Somaliland waxa laga dhigay 2 gobol oo qura gobollada bari oo Burco xarun tahay iyo gobollada galbeed oo Hargeysa xaruntii
lixdii degmo ee koonfurta 6 gobol baa laga dhigay ka soo gudub dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Soomaaliland magaalada burburiyo barakac qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn owdah tafaasiisheeda halku galmayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa mid uu maan uga socda gobolada waqooyiga waxa la keenay qaxooti tiradu gaaraysa 400 oo kun waxa 11 xero looga dhisay Soomaaliland jalaqsiyo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarina ama mashaariica ee caalamku ugu deeqay bariya galbeed wixii laga guraayay Ruushya Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Soomaaliland oo ahaa wadada ka soo burca soo gaadha ilaa iyo socota Hargeysa galbeedka u baxda ku ekeed kala baydhka iyo warshadii sibirka ragina waa wada joogteen ka mid baahayanaha lagu dar hadii wax kala lahayo halka markay marayso 1961 6 Abriil waxa lagu dhawaaqay aslan si loo raadceeyo xorriyadii Soomaaliland ee luntay 60kii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Soomaaliland boqolkiiba 9 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyay magaalooyinka waaweyn oo dhan waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadamiga ayaa si dhitay oo haya muddo 2 wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weyntahay la eegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badan yahay waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo luga waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobolada jaarka ah iyadoo xiriyo waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiicda taanku laayeen in ka badan oo laabakeeda ayaa silic iyo darxumo u dhimatay umulle daale waayeel waxa la baabiyay boqolaal sano wixii ay toconayeen Soomaaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha waxba laga bixin waa la cirib tiray taariikhda Soomaaliland si ula kasa loo baabiyay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Soomaaliland UNCO oo kooda heertan Google 2001 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Soomaaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bini aadmi waa maragmadoon waana tuu ka marag furaya farmaajo Ameerika marawlay waxa la xaqiijiyay oo imika la hayaa sahankooda 43 xabaalo wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la yiraahdo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogooyin lagu dulguray qaar baa iyaga oo nool gabri lagu gubay
waxaasoo dhan ka soo soco iyadoo waxaasoo dhan dhaceen 18 May Somaliland burcay isugu timi markay aragtay Somaliland wax garadkeedu uu dhamaa markay aragtay inaanu jirin axad midaya Soomaaliya Somaliland oo dhammaystiran oo caalami oo sharci qabanaya ah markay aragtay sida dawladdii Soomaaliya ee la yiri hal doon shantii Soomaaliyeed loogu hungoobay in shan Soomaaliyeed helaan walba u tashaday markay Somaliland aragtay in dawladdii Somali Democratic Republic ay si toos ah uga noqotay ballantii ahayd shan Soomaaliyeed hal doono markay aragtay Somaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 Juun 1960 oo noqday gaar u taagan waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Somaliland yiri shuruud aan lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonayaa waxba gurgurtada Soomaaliya la doonayaa maanta waxay leeyihiin maya waanu eednay ku noqon mayno intii ay 30 sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Somaliland waxa taa ka daran wixii hore dhacay 30 sano dawladii Soomaaliya isaga dambeeyay ee taamaanta ku jirta dagaalkay hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay Somaliland hirgin inay cunaqabateeyaan inay adduunka oo dhan ka hor joogsadaan oo aad muddo Somaliland inay ahayd qolo ay adoonsadaan oo qool gaar ah ku xidheen ay adduunka oo dhan la mareen oo aanay Somaliland yeelayn markaan soo gaabiyo dawladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdullaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladdan soo martay inkastoo maanta raali gelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan u bayray waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Somaliland saad dhinac walba uga dagaalanto dhowr qodob baan ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Somaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siya dhaaf inaanay cid bal la baacimsaray karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Somaliland ee dawladdu ka siirayeen special arrangement Somaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray yiri lama siin karaan ka dawladda bal hadda dhugo ma la wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxa kamid ah horjoogsiga heshiiskii ay wada galeen Xasan Sheekh oo isaga ka horeeyay iyo Silaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon walba inta qaadanaysa sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anagana la ictiraafsan yahay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalligan waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladdii Soomaaliyeed ee naga dhaxaysay inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Somaliland taa way diiday cad quudad ma siisatay xorriyadeeda waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xidhiidhka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxa inoogu filan inay Guinea cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland
يا شعب كسومالات كرامة يا ما مسموجسي waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda lahayd ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaar karnaa laba qodob oo kaliya balanka mid saxada ay keeno كو صوماليا قلنا كونفرد إني حشميسو أو حرميسو قرآن كي الشعبي كالسومالي لان يحقق أوليهين إني قرآن كوذا يهربتان كوذا كقب حان ميدوغي أي صيدة تضوعني ولا أقلين الشعب كالسومالي لان قاري سيدي يتوين كمي كوني يسيار بقولي كوبي سياشكي إني احتراما كلية أي نكون شيء كرر لبا وحين ولا نقون كرر إسكاشان كرر شار وناكسن نقون كرر مركز صوماليا مدحوينا يمكن تشوفه كبرابو يكوا صوص عضاوة هم مقلين مركز أي أقوى صدام قرن لماذا يمدحونا تشوفه الصوماليين القران إن النهاي لبضل oo midoobay iyaga oo isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka iyo ahadigi Soomaaliland gaadhay burco dastuurkeenu inuu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay aanu kala xaleexan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland oo hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta ba xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan buu qaaday markuu yiri raalgelin baan bixiyay laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sidee buu ku imanaya baa la isweydiinaya sidee buu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dambiye agaleen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaaranaya soo maaha waan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taameen aqbalayna maya suurtagal maaha ما يلينو صورة قال ما ها وحن كترين لها محمد مدحوينها سوالي طلابو عبد قاد قال قليل بعد بحس وحن وقادنا نبض إياه عقل ذا يسوس عطو لكن كوي بسنة ما ينقل أفلقيني وانكسو سيارنا تاسي واحد أرين الساعة عرو هرله إياه علاض هرله إياه عداوة ينالو بحرين ربنا مركان سوكو بهذا الحين تا ليه يوحي منا يا Soomaaliya iman ayaa buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabayga Faarax Nuure kala gooyun baa arinta ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarnu hoos yaalo تقوم بهالكي لقو قتلي قارت صادقانه ما نيجي بدي الله يقرشا الله يقول قلي دونه قانتي بالله بارانينه لما بارانينه قريارة نبض وريارة كلا قوسنا يقوم ملا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي فرحتي مقابلين
جمهورية الصوماليلاند madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay kaa jasaaysi ama asasi nabadgelyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay khudbad dastuuriya oo markaasi 2020 ka ahayd khudbad aad u qiimo badan dabcan khudbadan marka la eego waxa madaxweynuhu inta faraha badan kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan waxa uu si weyn uga soo sheekeeyay qarannimadii Soomaaliland ay soo martay oo runtii ahayd taariikh aad u dheer oo ka soo bilaamaysay ilaa waqtigii Ingiriisku uu dalka yimi ilaa maanta marxaladda halkay marayso khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaalo aad ka xiisaa wala waxay ahayd furidda ururada xisbiyada oo dib loo furayo taasi oo golaha wakiilada galbada golana si wada jir ah ay dabcan u soo dhaweeyeen waxa khudbadda madaxweynaha dabcan halkan uu ka jeediyay ay qiimo weyn ugu fadhiday marka la eego xisbiyada qaranka oo dabcan markaasi ahayd furashada urur siyaasadeedada